haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadii kala duwanaa idinkugu talagalnay qaybihii aanu maanta idinku hayno stuudiyaheena. xubinta koowaad ee toddobaadkan aanu ku soo qaadan doono barnaamijkeena waxay tahay shir looga hadlayay nabadgelyada gobolkaasi Puntland oo lagu qabtay magaalada Garowe. waa kan barnaamijkii oo runtii xiiso badan ku soo dhawaada daawadayaal. dowladda Puntland iyo xubno ka socda dowladda federaalka Soomaaliya ee Ahlu Sunna wal Jameeca ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta madaxtooyada dowladda Puntland kaasoo looga wada hadlayay sidii wax looga qaban lahaa xaaladda amniga Soomaaliya. kulankan oo ahaa mid ay albaabadu xiran yihiin ayaa markii uu soo xirmay oo isla markaana uu soo gabagabay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ayaa waxa saxaafadii kala gedisnayd xarunta madaxtooyada kula hadlay injineer Yariiso oo hadlay dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana sheegay in kulankan uu ahaa mid jawi wanaagsan ku soo gabagabay. la tashiyo la sameeyo dowladda Puntland arrimaha qorshaha qaranka ee nabadeynta iyo xasilinta dalka oo uu talaadadii hore ka dooday kadibna la go'aamiyay in la dhageysto qorshahaas bacdana qorshe qaran yahay dowladda Puntland wixii ay ku dari kartay ku darto. runtii aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay wafdigayga federaalka sida quruxda badan ee lagu soo dhaweeyay Puntland sida kalgacalka leh ha noqoto maamulkii ha noqoto shacabkii tusay midnimada Soomaaliya iyo qarannimadii iyo nabadgelyada halkan ka jirta. runtii inta waa midaan maaragtay taariikh nagu reebtay markii aan noqonana madaxda qaranka aan la wadaagi doono. waxa kale oo idan farxad ah labadii bari aan joognay in maamulkii dowladda Puntland aan ka wada hadalnay kana wada shaqeynay qorshahaas isaga ah isla markaasna aan isku wada fahmnay dhammaan waxyaalihii muhiimka u ahaa Puntland ee loo baahnaa in lagu daro qorshahaas qaranka xasilinta nabadgelyada dalka. iyadan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. sidoo kale waxaan ku faraxsanahay in maanta xarunta madaxtooyada aan gabagabadii kulankaas isaga ku qabsanay isagana si wanaagsan noogu dhammaaday. wasiirka amniga ee dowladda Puntland Khaliif Ciise Mudan oo isaguna u hadlay dhinaca Puntland ayaa sheegay in kulankaani uu ahaa mid wanaagsan isla markaana si fiican la isugu afgartay laguna soo qaaday xaaladda amniga iyo waliba qorsho amniga wax looga qabanayo oo ay waday dowladda federaalka Soomaaliya taasoo Soomaaliya oo idil ah. waxaana uu sheegay wasiirku in si weyn la isugu afgartay qorshahaasina uu ahaa mid wanaagsan. halkan waxaan ku qabanay shir aad u muhiim ah oo laga hadlayo sidii loo sugi lahaa nabadgelyada Soomaaliya. runtii waxaa noo yimi wafdi sida uu sheegay afayeenku ka socda TFG-ga iyo Umbos iyo wafdi ka socda Ahlu Sunna wal Jameeca. arrintaas annaga iyo dowladda TFG saacado badan baan ka shaqeynay waa ka doodnay wixii lagu dari lahaa wixii laga dhimi lahaa waa ka tashanay. aakhirkii waxaanu ku gabagabaynay inaanu isla garanay arrintaas iskuna raacnay mabda'iyan inaan ka wada shaqeyno balaankaas. balaanku wuxuu muuqdaa mid wax taraya ummadoo dhan gaar ahaan Puntland. marka waxaan aad ugu faraxsanahay dowladda TFG-gu inay noola timi barnaamijkan iyagoo aan implementationka gelin. gudoomiye ku-xigeenka guddiga fulinta ee Ahlu Sunna wal Jameeca Maxamed Maxamuud Yuusuf oo isaguna goobtaasi ka hadlay ayaa uga mahadceliyay dowladda federaalka Soomaaliya sida ay ugu howlan tahay in amniga Soomaaliya wax kaga qabato isla markaana ay qorshahan u soo bandhigtay. dhinaca dowladda Puntland waxa uu sheegay in dadka Puntland iyo maamulkeedu ay yihiin dad iyagu maamul leh isla markaana uu ku boorinayo in maamulkooda ilaashadaan. arrintaa waxaan u mahadcelinaynaa shacabka dowladda Puntland shacabka Puntland iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. meeshaan shirka lagu qabtay wuxuu ahaa shir runtii la isku afkartay Ahlu Sunna wal Jameeca dowladda kumeel gaarka iyo dowladda Puntland. shirkaasina waxaan isleenahay wuxuu dan u yahay ummadda Soomaaliyeed. qof kasta oo Soomaaliya ka mid ah waxaa waajib ku ah nimanka ku soo duulay dalka Soomaaliya oo argagixisada ah oo dalka iyo dadkaba kii dhintayna u diiday qabrigii oo qof haya midna gowraca iyo midna gaajo u dilay oo u diiday ganacsigii iyo horumarkii ummadda Soomaaliyeed iyo nabad qofku uu ku noolaado diiday. ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay markii kala horta la tiriyay waa cadow ummadda Soomaaliyeed
inay soo dhaweeyaan na waxa weeye waa arrin aad u xun weeye markii ugu horeysay oo ay xubnaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo Ahlus Sunnah wal Jamaaca iyo dawladda Puntland ay kulan ku qaataan xarunta madaxtooyada dawladda Puntland